salaamullaahi calaykum kusoo dhowaada wararkii ciyaaraha alaaba aan nooga barateen. Kooxda Man City ayaa 4-1 kaga badisay kooxda Fulham, ciyaar ay inta badan gacanta ku haysay una soo baxay wareegga xige ee FA Cup-ka. Xilli Mahrez uu dhaliyay 2 gool, waana ciyaaryahanka ugu goolasha badan Man City xilli ciyaareedkan. Ciyaartan ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso badan, inta badan Man City ay gacanta ku haysay. Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa iska soo xaadiriyay wareegga shanaad ee FA Cup-ka. Kooxda kubadda cagta Man City waxba lagama qaban karo, waa kooxda kaliya haddeer uguna waqti xaadirkan la joogo ugu guulaha badan, waana kooxda guul kastaba gaadhaysa. Kooxdan Pep Guardiola wuxuu ka dhigay Barcelonada Ingiriiska. Sidoo kale Frank Lampard ayaa guushiisii ugu horeysay ee Everton uu macallin u yahay ka gaadhay Brentford. Odaygii Lampard ahaa isaguna guushiisii ugu weyneyd ayuu ku furtay, waana iska faraxsan yahay, halkana la dabaaldegaya. Marka maalin dhow waxaan maleynayaa isagoo Chelsea ku dabaaldegaya, waan arki doonaa. Ayaa Chelsea iska ilaaliya ninka Lampard, isaguna waa badiyay. Wararka ciyaaraha haddaba intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Salaamullaahi calaykum. Intaan mar dambe isku imaan doono saaxiibayaal, subscribe-ka iyo share-ta iyo like-ta iyo comment-gaba intaba ilaawin. Aad baad ugu mahadsan